السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال ومكان وشؤون الحياة إليه سبحانه وتعالى أيام هذلي بفضل ومنه وإحسانه الله سوق لا شو هذلي إنه أول آخر بني آدم نقدر يسأل أو كلا قرنا محاسن عن محاقل دان أنا وكمد ماهي دات الله بلك عكونول كمد ماهي نيسو دالي منافقات دان سوماليا كجيت سوماليا سياسة كما جيت منافقات دا كجيت أب ليتكو أهانا هاي garanay meesha laga yimid meesha la joogo hadii ilaahay ku roon yahay 15 good ku soo dhacay caawi taladiisu ay marayso fiqigaas postiga ka saar leeyahay qabiil haybad leh oo Soomaaliyeed oo taariikh leh ka dhashay iskoor weyn soo dhigay shidaalkoodii madaxaanu furan uu iibinayo gurceel heritage baan ku haya dhuusa marab kalluunkoodii la iibsaday jeena laga gatay Soomaaliya taariikh iyo qiimo ku dhaxlaha balse hadda laga dhigtay guul wadayaal dadka caaya halkan waxaan xaal ka siinayaa Soomaaliya oo dhan qaasatan walaalaha reer Somaliland waxaan rabaa inaan iraahdo walaalayaal waxa idin dilay waa kaadir lacag badan bixinaya balag meelin ku sameynaya habar gadir taariikhdooda aasaya waxaan idin marag furaya islaamnimada in laga soo galo la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah kaasna calankeena ku qoran tahay hadii islaamnimada looga baxo yuhuud iyo kristaan oo nasaara iyo israa'iil iyo yuhuud ah ayaa qola aqoonsata hadii islaamnimada looga baxo Soomaaliya islaam ma noqonayso kulligeed Sacuudigu islaam ma noqonayo Turki Islam ma noqonayo islaamnimada loogama baxo in Mareykanku aqoonsado iyo in Israa'iil ku aqoonsato iyo in Hindus ku aqoonsado iyo in Buddhist ku aqoonsado iyo in Jayna aan diin leh ku aqoonsato islaamnimada laguma soo galo loogama baxo islaamnimadu waa ikhlaas mukhlisiina xunafa mukhlisiina lahu diina mukhlis waay wax ilaahay leeyahay wax ilaahay garanayo وإخلاص النية إن الله لا ينظر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم شركة ايربورك دقن الدي جي ستيفن نينك لليه بورال اكشن كواسو ليراهدو بانكرافتي كواسو تبابرا عيدمada اوغانديسكا برونديغا واسرائيل waxaa shirka ku ah Israa'iil oo booral action ah iyo W Bush wiilkiisa waa shirkada qaadatay tababarka ciidamada Soomaaliga hadii Uganda la geeyay hadii Burundi la geeyay waa Israa'iil ma gaaloobeen lacagta la soo aruuriyay cidii soo marto waa Israa'iil ma gaaloobeen marka inta beenta iska deyno oo hadii Ilaahay ku roon yahay isqaarijin dhaqanka qawaarista iska dhaafno oo nin walba ninka uu la dagaashay yahay oo sadii hebel waa gaal hebel waa muslim oo naag walba naagta la qaba ay sadeen heblaay waa gaal iyo waa sixroole iyo waa muslim waaqac muuso noqona hadii reer Soomaaliland digir cunayaan haday moofu cunayaan dhowr milyan oo qof waay xorna waay midnimadu waa ku caayaya waa ku xasdaya xilkan ka ilaalinaya waa ku barakicinaya hadalka gafka badan aan ku leeyahay waa inaan midnimo ahaana hal arin aan raba inaan ku sheego midnimadu waa qalbiga mar labaad kuugu celina diintu waa qalbiga mar saddexaad kuugu celina la ilaha illa allah wahdatka qalbiga mar afraad kuugu celina waxa laga kala tagaa qalbiga mar shanaad kuugu celina waxa laga wada joogaa qalbiga mar lixaadan kuugu celinaa
waxaa hadday hallaabaan dhulka iyo carrada iyo adduunka fasaadiya haa hunaa halkaas hadday xumaato halkaasaa xumaatay Soomaaliya halkaasaa kala tagtay dhulka jigjiga ilaa Gaarisa ilaa Jabuuti ilaa Aisha Soomaalidu waa siman tahay geelay dhaqataa waa lagu dhuudhuuban yihiin waa xubno dhuudhuuban yihiin waa maariin iyo casaan waa dad qurqurxoon waa dad wada san dhuuban luqadda Soomaaliga ku hadlaan dhaqan fiican bay leeyihiin waxaa kala geeyay qalbigooda kala tagay sida awgeed waxaan aaminsanahay Soomaalidii Itoobiya la gumaystay iyo Soomaalidii NFD oo la gumaystay inay ka nasiib bateen Soomaalidii xorriyadda qaadatay 60kii kuwaasoo aan ku badbaadnay kuwaasoo lagu qaxay kuwaasoo lagu degay Itoobiya iyo Kenya sidoo kale Soomaalidii Jabuuti ee baxsatay ee tiri Sooma raacayna dictatorka xamar joogana waa badbaadeen waxaa sidoo kale lagu badbaaday 98 maamul goboleedkii ugu horeeyay ee Puntland ee laga sameeyay meesha la dhihi jiray Puntland milyan qof Soomaaliya shaqo ka hesho ku badbaaday waxaa lagu badbaaday Somaliland gooni isu taagii ay qaateen iyo maamulkii ay samaysteen iyo isku tashigoodii xamar inaysan sugin waa kuwa dekada ku salaxday ku dhamaystirtay horumarka gaaray shilinka currency dadka kaliya currency ga Somaliland waa maaha in maareeyo markaan soo qaadanayo oo shakhsiyad fiican leeyahay laakiin waxaan ka hadlaa waxay tahay xilligii maareeyo aan dacway lahaa aniga habar gadir ma joogo aniga balaya italisay dadkayga balaya qoorta loo galiyaa eedaysa qaadi karina qoorta loo galiyaa maalin kasta waxaan iraahdaa war habar gadir waa ka macna badan tahay guulwade habar gadir guulwade waa ka macna badan tahay 100,000 oo qof oo habar gadir kaliya ayaa magaalada Muqdisho lagu barakiciyay shalay xabado nool lagu dhufanay meeshii la dhihi jiray Hurwa maaniga ugu yeera aniga isha islaamiya ugu yeera Soomaali nabad gashay inay aniga hoos fariisato waxaan rabaa mid inaan ku iraado walaalow iska daa beenta hadday cadow yuhuud iyo nasaara hadday cadow yihiin ingiriisku waa nasaaro mareykanku waa nasaaro labaduba waa cadow Soomaaliya ha laga saaro Ugandheeska Kiristaanka Burundiga Kiristaanka waxa dhan ha laga saaro Somaliland aan dhahano kuwa iska saara laakiin doofaarka maraqiisa aniga hal la isiyo hilibkiisana lama cuni karo cidna loo sheegin reer Somaliland waxay goobayeen اعتراف ma goobaynin ummahaatu sita inay bartaan ma goobaynin axaadiis kale ma goobaynin diin kale diin ayaka laga soo gaaray waan ku dhaqmaan اعترافay goobayeen ama Azerbaijan ha siiso ama Armenia ha siiso ama Ethiopia ha siiso ama Israel ha siisee meeshay ka helaan inay ka qaadanayaan nololay rabaan nolol wala caburiyay wala dulmiyay wala takooray baquli boy iyo ali geedi iyo bulal bulshaawi iyo ina barqab Soomaalinimada ay ka sheekeynayaan oo reer Somaliland looga sheekeynayo maxay tahay aniga iiga sheekeeyay reer Somaliland oo beentas aniga habar gadir iiga sheekeeyay aniga tollaan ugu dhacday aniga koofur ku silcay adinka idinkuguma yeeri karo falxumada sida awgeed waxaan rabaa inaan dhaho haddaad ila fahmaysaa caawi mid iga qora habar gadiraan la hadlayay Soomaaliya is gone shanta Soomaaliya gone waa tagtay mar hore tagtay ma soo noqonayso Soomaalida 60kii isku soo beertayna waqti bayow ka dhuman inay soo noqoto mar labaad ku celina nin walba surwaalkiisa ha dhuuqsado nin walba soonkiisa xirto war walaalow habar gadir tahay kalluunkaagi waa la iibsaday
wiil dhulbahantaa iyo gabar wiil warsangeli gabar dhulbahantaa iibsaday war walaalow habar gidir shadaalkaaga waa la iibiyey wiil jaroona iyo oday abgaalaha iibsaday war walaalow adiga habar gidirta sumcadaadii waa la iibsaday fiqi iyo waxaa iibsaday kuwa lamid iyo mahasanaad war walaalow adiga habar gidir maatidaadii waa la iibsaday waxaa iibsaday 20 waraaq oo abgaal wataan iyo 20 waraaq oo habar gidir loo soo dhiibay xildhibaanaha ayaa maatidaadii iibsatay war walaalow dumarkaagi waa la iibsaday oo darbiyadii ku ooyeen waa la dardaray war walaalow maatidaadii ilmahaagi waa la xumeeyey ma dareensan tahay garijira laga banaan baxay garijir uma banaan bixin 6 nimo ree ayaa lahu lidil uma banaan bixin iyo gabar 6 ayra oo 5 ayaa la ay tahay iyo gabar 6 ayaa la ay hal cabsiya oo la dilay gurceel uma banaan bixin matabaan uma banaan bixin garijir uma banaan bixin kumanaan la qixiyay gurceel uma banaan bixin garijir uma banaan bixin godon uma banaan bixin sida awgeed haddii dameerkii naga dhintay haddaan habar gidirnahay haddaan dumarka naga carruurta u wixii naxi weyn haddaan habar gidirnahay haddii xilaalkiina la ka qaad aan u naxi weyn haddaan habar gidirnahay haddii kalloonka naga la dhoofi aan u naxi weyne haddii shidaalka naga nolku degaankeeni la gadanayo aan ka hadli weyne ma waxaan sii noqonnay in haddana dhagxaan dadka lagu tuuro aan noqono aad ayaan uga xumahay waxa aan garansanahay tolkay inaysan garansanayn aad ayaan uga xumahay taariikhda qabiilkayga iyo jufadan ka dhasho macnaha leh sida loo baabi'inayo qabiilo kale loo dhisayo ogaadeen sumcadiisa waa la dhisayaa majeertada sumcadiisa waa la dhisayaa isaaq sumcadiisa waa la dhisayaa abgaal sumcadiisa waa la dhisayaa habargeel sumcadeeda waa lagu dheelayaa bilmageedeeda waa la laynayaa dhulkooda waxaa laga dhigay dhul laga banaan baxo raalli ahaada isaaqo $2 milyan ka badan ayaa lagu bixiyey in habar gidir gudoomiye kasta inta loo diro 200 kun la yiraahdo soo banaan bixi habar gidir yaa ii dhiibi kara caawa lacag reer Soomaaliland caawa lacag ma ii dhiibi kartaan gurceel idinkaga banaan baxa waa idin taageera matabaanan keena garijiraan keena xamaran keena afgooyaan keena ana intaas idin banaan baxa keena idin taageera isaaqo iyo reer Soomaaliland nacib ma jiro duruftana loo kaga faa'iideystay hogaanka naga yaa xumaaday 15 xildhibaan oo ciyaal suuq ah na hogaamiyay sida awgeed noo garaaba raalina ahaada waxaan daba soconnaa hadallada deelqaafka ee reer Soomaaliland lagu yiri waxaan leenahay reer Soomaaliland diin ma aysan goobayn reer Soomaaliland dadka Soomaaliya ugu diinta fiican waaye calankooda waxaa ku qoran diinta islaamka waxaa laga soo galaa laa ilaaha ila allah muhammad rasuulullah calankooda maxaa ku qoran laa ilaaha ila allah muhammad rasuulullah hawiye miyaa ku qasbay madaarooda ku qasbay ma muqdisho ku qasabtay ma garowga ku qasabtay ma kismaayo ku qasabtay war dadkii aan la gardarnaanin dadka haddii la dhibaateeyo oo la xumeeyo way gaaloobayaan islaamnimada yaa laga dhigin wax muqdisho laga leeyahay sida shabaabku uga dhigeen islaamnimada wax ay leeyihiin ayagu islaamnimada yaa laga dhigin wax carabu leedahay islaamnimada yaa laga dhigin wax beelaysan islaamnimada waa xigmad waa haddii ilaahay ku roon yahay firi caaway nabi maxamed xilligiisii waxaa jirtay ninka soo islaamana ha la soo celiyo ninka gaaloobana ha laga haro caaw ma jirtaa soo qaadan karnaa gaal diinta diidan salaada diidan dacwada diidan kan la leeyahay cadowgeena la leeyahay kaas waay gaalka kale lakum diinukum wali diin waay yaa ahlal kitaabi tacaaluu ilaa kalimati llah sawaa'un bayna wa baynakum ahlul kitaab diintooda ay fasaqantay new testament loo qoray been loo sheegay 5 mar la iska daba wareejiyay iska masaakiina wallahi billahi tallahi guri kristaan ku soo tukaday geedkii waxa suran haddii ilaahay ku roon yahay yowlkooda oo la leeyahay geedka kuusiga la dhihi jirayo haddii ilaahay wadanka ka baxa oo biraha lagu xiro bishan oo kale
أكتيس أنا تاجن وأقدمها يا إذا تصع الله أكبر الله أكبر فيري وأن أقدمها يا جيت كان أكتاجنه وإذا تصيع وإذا تصيع معناها أنا اسمه ما سوي لكم ما كانت تكون أيوه لكن جيت كي بان أجستاجي كدبنا وان أقدمي وان أقدمي ما كان أقدمه أيوه جيت كان أكتاجنه هيا على الساد هيا على الساد أرق يا أرق كو لبو أرق الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الساد هيا على الساد هيا على الفلاح هيا على الفلاح قد قام الصلاة قد قام الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله هل كان وأقول إليه عندك أو غالا وكريستانا جيت كودوا كاسوا اثنين أو كريسمسكا أنا هالكاس باكو تكنيا دي اللي هي مالin kasta ku tukada oo ku adima marka problemka dadka Soomaaliyeed haysto wuxuu yahay waxaan rabaa inaan ku dhaho marka fiiri ujeedadaas waxa aan u leeyahay waxay tahay waa muranay waa doodnay waa u sheegay inay dhuusan yihiin waxay aaminsan jannada inay galayaan khamri ma cabayaan muusig ma dheelaan waa ballanta waa ilaaliyaan dad wanaagsan waay aad u wanaagsan qalbi fiican ilbirqsi oo inaad ka keeni kartaa ilbirqsi haddaa sheeko uga sheekayso waa oynayaan bini aadan wanaagsan waay